الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال وحين سعودي كتاب كأني 40 النووية ورسولك عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم حديثتي سافرتا كميدا لقيشة كيني رسولك صلى الله عليه وسلم حديثة أيضا إمام النووي رحمه الله تعالى ينوصى الدوري حديث كيسة دحاد وما تكشى كان أركان الإسلام وصان بلقان حلقة هراء عن الأركان الإسلام وحنكوفها فاهين دونا حديث كيسة دحاد أيان ما أنت قلي دونا هدي لهاي لهذا حديث كيسة دحاد وحاورين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن باورين يا عبد الرحمن أبيه وأها عبد الله بن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكرنا إنه صحابي جليل وعبد الله بن عمر بن عمر لو يقان أيوب علي صحابي آدي صحابة رضوان الله عليهم لحظة وقم وقضي آدي علم بنا صحابة شنطة عبادلة اللي جرى آدي كو علم بنا كمدها عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن عمر يا أيوب كمدها حديث كمركز صحابي يا ورنيا صحابي آدي أضف اللي بدن بها عمر رضي الله عنه عمر مركا iyo Cabdullaahi waa laba saxaabi saan wada garan markay laba saxaabi isdhalaan ama xadiiska ay weerinayaan ama la soo hadal qaado waxa fiican sida culimada iyo fuqahaadu ina bareen kutubtana ku qoran radiyallahu anhuma in la dhaho Ilaahay subhanahu wa ta'ala labadooda war halaha ka noqdo meesha hadaad saddex saxaabi ama dhowr qof oo fiican ahlu khayr oo saxaabada kamid aad sheegto loo baahan yahay radiyallahu anhum culimada markii la sheegay rahimahullahu ta'ala in la dhaho weeye sida sheekha kitaabkan qoray imaam an-Nawawi oo soo hadal qaado waana taa rahimahullahu ta'ala ilaaha una xariisto marka qof kasta xaqiisa in la siiyo way ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla shanu ilaaha ku abuuray markaas xusto ma ilaahay subhanahu wa ta'ala nazahado subhanahu wa ta'ala jalla shanu azza wa jalla tiraahdo marka rasuulka calayhi afdal salaatu wa tamma taslim soo hadal qaadana nabiga ku sallida way sallallahu alayhi wa sallam marka saxaabada radiyallahu alayhim la soo hadal qaado waa in loo duceeyo radiyallahu anhum waa in ilaahay subhanahu wa ta'ala loo bariyo in ilaahay ka raali noqdo ilaahay jalla shanu ka raali noqday culimada intaada kale markii ma taqaana la soo hadal qaado waa in raxmada ilaahay loogu duceeyo oo raxmatullaahi calayhim rahimahumullah la dhaha weey sida ayaa fiican marka waa inaan barra caruurteena iyo dadkeena iyo ma taqaana dadka mas'uul ka nahay inay sidaa bartaan xataa culimada nool ee cilmiga ina baraya iyo dadka ehlu khayrka waa in ma taqaana loo duceeyo iyo culimada cilmiga soo bartay ilaa khayr hasiyo inta nool ilaa cimrigooda haraajiyo rasuulka xadiiskan waxa ka warinay marka Cabdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Cabdullah wuxuu yiri سمعت رسول الله رسولك الله وحان كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أسقوله بني الإسلام على 5 إسلامك وحا لغو ديسay shan baa islaamka lagu dhisay bimaana markii guri hadda la dhisayo tirar buu baahan yahay gurigu tirar buu baahan yahay lagu dhiso tirar ma taqaana haya guriga saqfigiisa sare ayuu u baahan yahay marka islaamku tirar buu leeyahay shan ah arkaanta islaamka lagu dul dhisay la rabana in kulligood la helo qofka mid kamida oo awood hadii laga waayana oo islaamnimadiisii khalal galayso shan weeye ta ugu weyn albaabka ugu weyn lagana soo galay islaamka aha uguna muhiimsan qofka laga waayana islaamka meel uu soo dhawaanayninba doondana aysan ka taagin soo islaam ahayn shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa inuu qofku qiro in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaligi yahay kaligi inuu ilaahay jalla shanu yahay qofku inuu qiro weeye marka qofka waxa la rabaa walaalayaal inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wahdaaniyadiisa uu la yimaado oo ilaahay jalla shanu waxa jira kaligi uu leeyahay cibaadada kamid ilaahay cidaha in lama caabudo waxa kamid ducada ilaahay cidaha in lama bariyo waxa kamid qofku inuu wax gowraco ilaahay cidaha ahayn wax looma gowraco waxa soo dhan baa kamid kuwa kale fara badan cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku waajibiyay faraha badan ayadna ilaahay baa subhanahu wa ta'ala iskale waayahay oo salaad iyo zako iyo soon iyo xaj oo kuwa soo socda iyo wixii kale cibaadada lagu waajibiyo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa iskale marka ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadada u kaliyeesho oo aaminto la macbuuda bihaqqin illa allah qof ilaahay qof ma taqaana xaq lagu caabudo adduunyadan ama koonkan inuu dushiisa joogin jiri doonin horena u jirin lana arki karin ilaahay subhanahu wa ta'ala mooyeen marka way jiraan dad waxaad caabudo dad waxa jira dabka caabudo kuwa looda caabudo ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiin inaga dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimiinta inaga dhigay aan ku mahadino weey marka ilaahay jalla shanu kaligi ayaa la caabudaya kolka koowaad marka ilaahay midmeeysa in la qira weey wa anna muhammadan rasuulullah
إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسي ودقونا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبي الله محمد رسول إلهي صادر إنو يهي وأنا رميسو وحلايا خزع بلاد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كود ننعر بيض وهاي عرب الله صادر إيه وحلايا لمدك وأنا استنتشوش وقلنين نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى صادورتي إلهي بقى خلقك أو أبو رب النبي محمد كدورتي رسوشة أو رب وقف الليالي إلهي أسقى فضلك قيبيا وأركيسا ما أنت قف إلهي متقانا حوله إلهي بقى قيبي قارب حولسي قار حول مصيو إلهي علمك أسقى قيبي قارب علمي سي قار علم مصين إلهي قروح أسقى قيبي قارب قروح سي قار منصين إلهي عرط أسقى قيبي سلا سلا مدى إله سبحانه وتعالى وحي جيسا إيا فضل جيسا إيا النبوة ديسا إيا حكمة ديسا إيا دين ديسا نقو قيبي تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض مركا إله سبحانه وتعالى رسول شو إله كفضل نبي محمد نبي محمد مركا رسول نبي سأخر ويسوي حقه وكقول هنا أقرته وينيسو أو متقانا وكل النقض إنه ويهاي مرفر بدل ما شجع أرجع يدها قف عادي وأنا شكرا نقنن مركز مجا عن النبي الشيء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأنا هذا الشيء سيدي قف صاحبك وقف كشكانة وكلاته قارب حقولها محمد باوي حيلي سياسوا كشكاي من صاحبك أمين أديرك أمين علي الله ما بحنا ولا عليها وحلو بها يقفكو مركو رسولك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حسن مجا عيسى إنه قصة ليه إنه قدريه إنه وينيه عيال الربع ويدجينها رسولك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حديث الدين تنسوي نسوي جالسين لهينا دي حقا ما ينعرقنا مركب بسببه الله سبحانه وتعالى إنك قصاري من الظلمات إلى النور وحارها مركب ولا عيال قفك إنه رسولك عليه الصلاة والسلام وأسقنا الرمايو لبضاس الله يسكدره وحاول الركن أركان الإسلام كمية وين قوك الله يحاول يقام الصلاة قفك إنه صلاة أوجو معناها هذا يحاول قفك مرة صلاة كتبه مرة وباللعب معها حيقولنا إن هي مرة كقار صلاة متكذو مرة وتكذاي ومتقانا وشد بضايا سوفي بالنقطة وحلو بهاي معها صلاة وحال ربع قفك ست شوكتين ولي ماده سida awgeed ba waxay dhihi jireen culimada iyo Soomaalida waxa ka soo gaarnay markay qof amaanayaan waxay dhihi jireen salaad kuma daro bimacna hadduu muqiim yahay laba salaad iskuma gaaraan salaada duurka xilligeedu tukan fajriga xilligiisa casarka xilligiisa wahaakada marka waxa rabaa salaada in la oogo oo qofku salaada uu si joogta u la yimaado qofka hadduu salaada ka tago waa musiibo rasuulka kaleey afdal salaatu wa atamu tasliim wuxuu leeyahay as-salaatu imaadu-diin salaadu waa tiirka diinta faman tarakaha faqad hadama ad-diin qofkii ka taga diinta ayuu burburiyay qofkii ka taga salaada diinta ayuu burburiyay tawxiidka oo shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah waxaa qofka laga rabaa inuu hal mar dhaho baa qasaba markuu hal mar dhaho inuu marar dambe yiraahdo oo qasab maaha laakiin salaada maalinkii qofka waxaa laga rabaa 5 jeer inuu tukado tawxiidku 5 jeer gudaheedu ku jira taxiyaad kasta qofka waxaa laga rabaa ilaahay inuu ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah waxa laga rabaa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu labadu way soo arooreen ataxiyaadka marka ayuu qofku shahaadi ku sheegayaa mar kasta idan si maalin kasta aad muumin u noqoto maalin kasta iimaanka aad u cusboonayso waa inaad 5 salaadood waajibkaaga tukato ataxiyaada ku jiro dhanna waa in laga helo waayahay sagaal ataxiyaad baa ku jira sagaalkiiba in laga helo weeyo sagaalkiiba aad ku dhawaaqdo tawxiidkii saasay ku imanaysaa marka iimaankaaga mar kasta aad cusboonaysiiso mar kastana nabiga kaleey afdal salaatu wa tamma tasliim iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisa thumma rasuulnimadiisa aad qirto saasay ku imanaysaa marka inuu qofku salaadiina uu oogo weeye qofka hadduu salaada ka tago walaalayaal oosan salaada tukanin waxa ay noo dhaxeeyay inaga gaalada inuu kala garto waa salaada weeye marka qofka salaada hadduu ka tago culimada qaar waxay leeyihiin hadduu juxuud uga tago way isku raacsan inuu gaal yahay hadduu dhaho war waxaan fooforarsi maxay eegadan aniga iyo isqooqeyn iyo hadduu yiraahdo inuu gaal yahay culimadu isku raacsan yihiin laakiin hadduu ajis iyo takaasul iyo isjiid iyo uga tago ayay isku khilaafsan yihiin ma gaal baa mise gaal maaha marka aad muslim tahay muslimaduna dhabka tahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala rumaysan tahay maxaaba ku gelinaya in la isku khilaafo oo la isku qabto oo dhaho qofka qubuurta muslimiinta ma lagu darayaa mise laguma darayo halka maxaa ku gaarsiinaya salaada ilaahay subhanahu wa ta'ala tuko qofkii tukada salaada alla tukada qofka aan baan qofka liibaan noqonaya liibaantu waxay ku jirtaa salaada oo la yimaado marka salaadu sidaa weeye faman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan qofka waxa raba ilaa alla ka cabsi inuu mataqana arintiisu ku saleysanaato oo misaajidka aan laga waayin waxa laga muhiimka waxa kamid ah muslimiintu barigeena ururmayna kala lahayn jamaacadna ma ahayn ahzaabna ma ahayn muslimiintu waxay isku garan jireen misaajidka
masaajidka qofka lagu arkaya muslim ahaan jiray, masaajidka qofka laga waayo baa laga shaki jiray inuu munaafiq yahay iyo isagoo muslim ahayn. marka waxaa rabaa masaajidkan lagu arko walaal, masaajidka dad kula tuko, masaajidka ha lagu yaqaano, xaafadda aad degan tahay masaajidka waa inay kugu barataa, waa in masaajidka lagugu yaqaano, waa in salaada lagugu yaqaano. idan salaada oo lala yimaado waa arrin muhiima, waa rukniga labaad ee islaamka. haddaba haddaa intaad guri dhisto aad tiraa hal tiir baan ku taagayaa, macquul ma aha. salaad qofkii aan tukanina zakiya soo loogama fadhiyo oo waa la kala horeeyaa, oda dhacmeed se u kala sarreeyan baa loo kala guraa, se u kala sarreysa hawsha waa in loo kala horreysiiyo. marka salaada marka koowaad tawxiidka kadib salaadaa qofkii laga rabaa. idan waxaa loo baahan yahay qof kasta oo walaalka na dhegeysanaya ama qof kasta oo codkana uu gaari karo inuu daneeyo inuu salaada ku dadaalo. salaada inuu qof ku dadaalo ayado arrin muhiim ah, waa rukniga labaad ee islaamka. rukniga saddexaad waxaa wey itaa zakaa, qofku inuu zakada la yimaado. rukniga koobaad saan soo sheegnay oo tawxiidka ahaa, waxaa la rabaa qofka waa badani, laba xubnood bay ka dhacaan. xubinka koobaad waa qalbiga, qofku waa inuu qalbiga ka rumeeyo ilaahay kelinimadiisa iyo rasuulka caleyhi afdal salaatu wasalaam rasuulnimadiisa. xubinka labaad waxaa weeye ama meesha labaad ka dhacaysa waa badani, waa inuu carab ku dhawaaqo oo waa qowli, inuu carab ku dhawaaqaa rabaa, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah qofku dhaho. waayahay yaa qofka saasaa laga rabaa. waayahay ashhadu an laa ilaha sida loogu dhawaaqayaana anta carabka laguma muujinaya, al baa la dhahaya, ashhadu an laa ilaaha ila allah baa la dhahaya, an laa ilaaha ila allah. oo nuunka asaga aha waxaa weeye laamkaa lagu dhufanaya, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah. saasuu qofku ku dhawaaqaya. marka kow qalbiga yaa laga rabaa, kadibna afkii baa laga rabaa. qowlka labaad oo salaada ahaa ayadna waxaa weeye waxaa isku darsatay badani, jirkao dhan baa laga rabaa, oo sujuuddii iyo rukuucdii iyo yaa la rabaa, dhaqdhaqaaqaasale waa badani. oo tahay salaada waxaa weeye aqwaalun wa afcaalu muftatixatun bitakbiir mukhtatimatun bitasliim, waa aqwaal, waa odhaahyo iyo ficilo la sameynayo, iyo qalbiga oo ka horeeyo salaaddii la niyoonayo, muftatixatun bitakbiir allahu akbar ka bilaabata, mukhtatimatun bitasliim assalaamu calaykumna ku dhamaata. idan salaaduna waa taa walaalayaal. marka salaadu maxay noqonaysaa? waa badaniya weye salaadu, badaniya weye salaadu. arkaanta islaamka marka waxay isugu jirtaa qeyb badani aha iyo qeyb mataqaanaaye maali aha iyo qeyb labadiiba isku darsatay iyo iskugu jiraan. labadaas ayay hadda waqtiga waxaan gelaynaa nasashadeer kadib isku soo laabanaynaa. marka arkaanta islaamka waxaa ugu muhiimsay tawxiidka, ashhadu an laa ilaha wa anna muxamadan rasuulullah. laba waxaa ah salaada. qodobka saddexaad waxaan maraynaa zakadii ahaa. waan isku soo noqonaynaa meel fog hanaga aadina. waad ku mahadsantihin dhegeysigiina. walahi waxaan ka soo sheekeynayna xadiiskii oo cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma warinayey ee ka sheekeynayey arkaanta islaamka arkaantiisa shanta ahaa. waxaan maraynay zakada. zakadu walaalayaal waa maaliya, waa xoolo la bixinaya weeye. waaya xoolahaaga qofki ilaahi subxaana watacaala hanti siiyo yaa laga rabaa. waayahay qofkii marka macnaheedu wax jirkaaga ku xidhan maaha, wax afkaaga ku xidhanna maaha. waxaa la rabaa qofkii ilaahi subxaana watacaala xoolo siiyo waa looga fadhiyaa. idan waa qeyb maaliya wey, waa xoolo keliya iyadu. markii xoolihii qofka laga helo waxaa rabaa qofku inuu markaa zakadii bixiyo. waayahay wa itaai zakaa, marka zakadii oo lala yimaado ayaa ayadna rukniga saddexaada. rukniga saddexaad waa maxay? waa zakadii oo lala yimaado. zakada marka in lala yimaado oo qofka xoolihiisa ka sakeeyo dhowr sababood bay leedahay ama dhowr faa'iiday leedahay. faa'iidada koowaad waxaa weye markii zakada walaal la bixiyo ee inta hantida le hantidaadii bixiso, fuqaradu way yaraanayaan ama way qarsoomayaan oo maba jirayaan. oo qof kasta hantidiisii markuu ka soo bixiyo zakadii kasoo gooyo, kadibna uu dadkii fuqaradaha dib loogu celiyo, waa arrin aad iyo aad u fiican. marka xoolaha laga qaadayo dadka hantida leh dibna loogu celinayo dadka masaakiinta ahaa ee xoolaha ayada la siinayo fuqarada iyo masaakiinta iyo asnaaftii 8 aha ee qur-aanka u xadiday, dadkii baahnaabaa baahidii ka baxaya. waayahay qodobka labaad waxaa weeyaan xoolahaagiina haddii zakada aan laga bixinin xaaraan bay noqonayaan. idan xoolaha dad baa xuquuq ku leh, adigana ilaahay baa subxaanahu watacaala kuu dhiibay. adiga xoolaha lagu dhiibay waxaa lagugu dhiibay aad khaliifo ka noqoto ood sida habboon aad ku bixiso.
haddii marka xoolihii aad zakadii ka bixin weydo xoolahaaga way ka xaraatimoyaan xoolihii inay xaraatimoyaan xaaraan kaa noqon wax loo baahan yahay maaha xoolahaagu marka waxay xalaal kugu noqonayaan inaad zakada ka bixiso waayahay markii rasuulku calayhi afdal salaatu atama tasliim uu geeriyooday ayay qaar fara badan oo carabti ah oo qabiilo leh oo dad fara badan lahaa ayaa diiday zakadii inay bixiyaan abubakr asidiiq radia allahu canhu wa ardaah khaliifatu rasuulillaah oo saxaabada ninka ugu fadli badan ahaa ayaa markaa khaliifadii nabiga noqday xilkiina gacanta ku hayay abubakar wuu diiday hawsha ayada ahaa wuu ku gacan sayday wuxuu yidhi qofkii salaada iyo zakada kala saara oo salaad baan tukan dhaha waayahay zakana bixin maayo waan kula dagaalamayaa buui xataa hadduu xarii diido riwaayadka qaarkoodna xataa hadduu dabar ii diido dabarka lagu dabro neef geel lagu dabro xataa hadduu kaa ii diido waan kula dagaalamayaa buui mataqaana abubakar saxaabada qaar baa yidhi maya dadku hadday tukanayaan tawxiidkiina ogol yihiin salaadiina tukanayaan abubakar u kaada cumar baa kamid ahaa radia allahu canhu oo qofkii labaa saxaabada ahaa abubakar wuu diiday wuxuu yihi qofkii salaadii zakada kala geeya waan kula dagaalamayaa marka qaarkood way gaaloobeen oo way ridoobeen qaarkoodna zakada unbay diideen labadiiba abubakar wuxuu yihi wax ka jiraa ma jiro xataa uu dadkii tubta kusoo riday zakadiina ka qaaday diintiina ay sidaa ku sugnaatay marka waxaa rabaa marar fara badan islaamku wuxuu u baahan yahay awood buu u baahan yahay qof qawi ah ayaa loo baahan yahay qawi wuxuu ku ahaa ummadiisa qawi wuxuu ku ahaa saxaabadii nabiga caleyh afdal salaatu atama tasliim iyo taabiciintii dib ka yimid iyo dadkii dambe islaamay qawi wuxuu ku ahaa awoodii muslimiinta oo midaysnayd qawi wuxuu ku ahaa waa la weydiiyey oo waa lala dooday laakiin in hal qoolar qaato oo hal wado la maro ayuu qawi ku noqday abubakar asaga ayaa qawi ahaa oo saxaabada ridwan llahi caleyhim ninka ugu fadli badan ugu xoog badan ayuu ahaa walmu'min alqawiyu khayru waxabu ila llahi min almu'min adaciif mu'minka xooga badan ee codkiisa ku xoog badan ee gurigiisa ku xoog badan ee cilmigiisa ku xoog badan ee xilka uu hayo ku xoog badan qofka asaga ayaa wuxuu ka khayr badan oo ka fadli badan yahay qofka hawsha uu hayo si jilicsan oo liita u haya marka waxaa rabaa qofku hawl kasta oo ummadda u hayo inuu awood ku yeesho hadduu macallin yahay inuu carruurta si fiican u tarbiyeeyo hadduu sheekh yahay inuu cilmiga si fiican u gudbiyo hadduu madax yahay oo xil hayo inuu ummadda xilka si fiican oo dadannimoa oo xilkarnimoa uu hayo haddii uu intaa midna uusan ahayne uu aabba yahay carruur korsadisa inuu carruurtiisa si fiican u korsado hadday hooyo tahay inuu carruurteeda si fiican ay u tarbiyeyso haddaad habeenkii maanta o dhan haddaad wareegto ama khayr badan qabato bale aad salaatuleel u kacdo waxaa ka fiican carruurtaada si fiican hooyada ay u tarbiyeyso aroortii waxbarashada si fiican ugu dirto qureec fiican siiso markay salaadaas wax tukato ee si fiican carruurteeda u amabixiso ayaa ka fiican marka hooyada xoogga leh ayaa eedna mataqaanaa ammaan gooniya ayay leedahay hooyada sharafta leh waa hooyada carruurteeda waktiga gelisa marka dadkan kalena waxaa weeye qof awood leh oo qawi ah ayaa la rabaa qofku inuu noqdo xaalo kasta oo ku jiro marar fara badan qur-aanka waa adiga ku arkay salaada iyo zakada in laisku xidhay oo aan meela la kala geenaynin wa aqiimu salaata wa aatu zakaa marka wuxuu yihi abubakr asidiiq radi allahu canhu salaad iyo zaka meel loo kala qaadayaa ma jirto qodobka afraad xadiiskan xajka ayuu soo hormariyey wax dhibana ma laha haddii lasoo kala hormariyo laakiin sida faraha badan axaadiista badanka ku soo arooray ay una kala horeeyaan sida inta badan dadka dhaqankooda uu yahay ama acmaasha ay u kala fududahay soonkaa soo horeeya oo qofku markuu 15 jir gaadho ama qaan gaadho baa soonka ka rabnaa meesha xajka laga rabo markii qofku qof weyn oo hanti leh uu noqdo ama 15 hadduu gaadho hadduu hanti leeyahay waajib bay ku noqonaysaa laakiin inta badan dadku markay weynaadaan ayay hanti ay gooni u leeyihiin hanti ay mataqaanaa ay tabar ay ku maamulaan ay yeeshaan waayahay oo qofka asagoo hantidii leh ayaa laga maro fara badan usan maamulin dantaa kalena marka waa maxay walaalayaal dantaa kalena waxaa weeyaan xajka oo lasoo hormariyaa dhib ma laha marka xadiidkan xajku soo hormariyay sa xadiisku yahan ku wadaynaa waa xajil beyti inuu qofku xajka tago ayaa ayadna laga rabaa xajka qofku inuu tago laba shay ayadna u baahan tahay kow waa badani jirkaaga baa la rabaa in lagaa helo laba maxaa kaloo la rabaa ayadna in lagaa helo waxaa ayadna la rabaa in lagaa helo hanti baa loo baahaya xajka lagu tago waayahay marka xajkuna wuxuu u baahan yahay labadaaba in lagaa helo xajka oo la xajiyeyna fadli fara badan buu leeyahay marar fara badanna waa lagaga sheekeeyaa tv-ga inaguna xalaqooyin kale aan kaga hadalay marka xajku waxaa weeye qofku markii uu hanti yeesho waxaa laga rabaa inuu xajka uu aado haddii ilaahi subxaana watacaala uu xoolo iyo caafimaad uu iskoogu daro rugniga shanaad ee ugu dambeeya walaala waxaa weye waa soomi ramadaan bisha ramadaan oo la soomo oo waxaa weeye qofkii bisha ramadaan gaadha caafimaadna ku gaadha isla markaana walaalayaal bisha ramadaan jooga caafimaadna qaba awoodna u leh
waxaa la rabaa asagana inuu mataqaanaa bishii ramadaan uu soomo wa soomi ramadaan bisha ramadaana la soomo marka idan waxaa kamid tahay arkaan islaamka shanta kamid tahay idan towxiidka hal mar in la ku dhawaaqdo ilaahi subxaanahu wa tacaala aada rumayso iyo rasuulkiisa ayaa lagaa rabaa salaadana waxaa lagaa rabaa sanadkii maalinkii 5 jeer baa lagaa rabaa oo waa arrin maalinley ah dheyli weeye maalin kasta ayaa salaadii lagaaga fadhiyaa arrinta zakadana waxaa lagaa rabaa sanadkii hal mar inaad xoolahaaga zake ka bixiso meesha xajka lagaa rabo cumrigii hal mar intaad nooshahay hal mar baa xajka lagaa rabaa waayahay soonkana sanadkii hal mar baa lagaa rabaa idan maxaan dhihi karaa waxaan dhihi karaa cumrigaaga waxaa lagaa rabaa xajka iyo towxiidka marka islaamka soo gelaysa ugu horeysa buu waajib yahay inta dambe hadduu qofku muslim yahay asagaaba salaad maalinkii 5 jeer ka fara badan ugu dhawaaqaya waxaa kaloo laga rabaa qofku inuu dikrigiisa ku darsado towxiidka oo dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala ayuu kow ka yahay oo subxaana allah alxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar baaqaa saaxakaasu ku jira waa lagaa rabaa asagana laakiin hal mar ayuu qofku inuu ashahaato laga rabaa waayahay labo waxaa asal labeeya salaadii oo qofka 5 jeer maalinkii laga rabo inta waajibka ah sunnihiina uu kuu dheeryahay zakadii ayadna sanadkii hal mar baa lagaa rabaa oo hantida waxaa rabaa zakada 3 shardi baa kow ahaa waxaan inuu gaadho nisaabkii gaadho waayahay labo waxaa ayadna laga rabaa yani tiro mucayana oo waxaa jirta inuu zakadu ay gaadho la rabo xoolaha masalan in geelu 5 gaadho adhiguna 40 gaadho iyo wixii lamidka ahaa marka zakadu waa baab weyn marka zakadii waa inay xooluhu uu gaadho meeshii loogu talagalay inuu gaadho waayahay waxaa lamid ahaa oo hadda xoolaha lacagta oo kaleete lacagta inta fara badan dahabkaa lagu qiyaasaa laakiin culimada qaar waxay leeyihiin mablaqa aad haysato masalan 5,000 oo dollar baa sanad yaad haysatay ama $1,000 baa sanad haysatay waxaad ka bixinaysaa rubuc cushur markii loo dhigo 10 meelood hal ka mid ah rubuci baad ka bixinaysaa masalan 10,000 oo dollar maxaa rubuc cushur u ahaa $1,000 baa u ahaa $1,000 maxaa u ah rubuc $250 baa u ah 10,000 oo dollar maxaa ku waajibaya $250 ayaa ku waajibaya marka zakada sanadkii hal mar ayaa lagaa rabaa laakiin shardiga kale la rabo wuxuu yahay inay uu sanadku ku soo wareego oo hantidan ayada ahaa haddaad maanta haysato oo bil kadib kaa dhammaato zake lagaama rabo waayahay markay 10 bilood marayso bay kaa dhammaatay zake lagaama rabo waa inay hantida ayada ahaa sanad uu ku soo wareegaa sanad inuu ku soo wareego guriga aad degan tahay faraska aad saaran tahay gaariga aad wadatay iyo sida arjaxa gabadhu dahabka ay xiran tahay iyo eedna zake lagama rabo waxaa laga rabaa wixii intaa ka baxsan noloshaada wixii ka baxsan ayaa eedna zake laga rabaa waayahay marka zakaduna xoolaha laga rabaa sanadkiina hal mar baa laga rabaa waayahay xajka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii la weydiiyey oo nabigaas xaj ka hadlaya baa nin baa weydiiyey afi kulli caam ya rasuulallah sanad kasta rasuulka ma xaj bana laga rabaa nabigu wuxuu yidhi maya low qultu la wajabat haddaan dhihi lahaa buu yihi haa waajib bay noqon lahayd mana aydaa awoodeen rasuulku caleyhi afdal salaatu waatamu tasliim ummadda wuu naxariisanaya rasuulku raxmad ayuu inoo ahaa hadduu haa dhihi lahaa waajib bay nagu noqon lahayd mana aydaa awoodeen buu yihi ee waxaa laydinka rabaa hal mar sanadkii hal mar qofkii xajka aada waajibkuu ka dhacay hal mar qofkii xajka aada waajibku ka dhacay culimadu waxay leeyihiin xataa waxaa sunno ay leeyihiin 5 sano qofkii ilaahay dhaqaalo siiyo inuu mar xajka aado baa fiican bay leeyihiin qofkii tabar awood dhaqaale u leh haddaad doonto mar adwafaha ka xaji mar aabbaha ka soo xaji mar haddii hooyada ay xajka tegin ama aabbaha uusan tegin awowga walaalkaa oo kaa weyn adeerka wahaakada ayeyda marka waalidkii xaqa kugu lahaa ka soo xaji haddii xataa mataqaana ilaah subxaana wa tacaala uu tabar dhaqaale ku siiyo laakiin qofku 5 sanaba inuu mar xajka tago ayaa laga rabaa xajka waa rukniga afraad sida hadda xadiisku u sardiyey rukniga shanaadna waxaa weeyaan waa soomi ramadaan bisha ramadaan oo qofku soomo ayadna waxaa lagaa rabaa sanadkii hal mar ayaa lagaa rabaa marka xajku sunan buu yeelanayaa cumraa jirta ramadaankuna sunnooyin baa jira oo waxaa kamid ah 6 min shawaal 10 dilxija yowmu carafa waxaa kamid ahaa yowmu caashura haddayna soo haya iyo waxlaagaha lamidka marka waxaa raba walaalayaal qofku inuu guud ahaan arkaanu islaamka 5 ahaa uu barto 5 rugnina inuu la yimaado oo isku dayo ciyaalkana la xifdisiiyo iyo dadka xaafadda ku nool iyo qof kasta oo mataqaana islaamka iyo ku cusub oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa aynu soo islaamino intaasoo dhan baa laga rabaa xadiiskan mar labaad ku celinayna marka hadda waqti naga dhicin can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar bn khataab radi allahu canhuma
saxaabiga abi cabdiraxmaan kuyadiisu tahay magaciisuna cabdullaahi bni cumara waxaa laga wariyey ilaahay asagii aabihii cumar baa ka raali noqde qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi rasuulka ilaahay udgoonihii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay 5 tiir dushood 5 baa islaamka lagu dul dhisay waayahay shahaadati an laa ilaaha ila allah haddii shahaadati lahoos dhabo 5 baa laga bedelayaa oo 5 baa islaamka lagu dul dhisay ka koowaad waxaa weeye shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ilaahay subxaanahu watacaala kelinimadiisa ood qirto rasuulkiisiina rasuulnimadiisa aad ogolaato wa iqaami salaa salaada ood oogto oo si joogtaa ula timaado asalaatu iyo cimaadu diin salaadu waa tiirka diinta weeye faman tarakaha faqad hadama diin qofkii ka taga diinta wuu dumiyey waman aqaamaha faqad aqaama diin qofkii ogaana diintii wuu oogay wa itaai zakaa zakada ood bixiso oo dadka xaqa ula aasiiso markay xoolahaaga sanadkii ay ku soo wareegto waxajil beedka ood xajido haddaad awood dhaqaale iyo mid caafimaad u leedahay wa soomi ramadaan bisha ramadaan ood soonto waqtigoo ciidiya daraaddii walaalayaal arkaanu islaamkii iyo xadiiska asaga ahaa inta ayuu noogu ogyahay xadiiskana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa wariyey saan soo sheegnayna xadiiska bukhaari ee muslim ay wariyaan waxaa weeye waa xadiiska ugu sareeya axaadiista nabiga caleyh afdal salaatu atama tasliim dhegeysigiin waad ku wacan tihiin ilaahayna subxaanahu watacaala ajir fara badan ha idinka siiyo saad u danaynaysaan diinta iyo cilmiga africa t v 4 oo qanaadkiina mufadalka ah oo aad iyo aad ugu taxan tihiinna waad ku mahadsan tihiin taxanaha shaaad ku taxan tihiin khayrka faraha badanna aad ka dhegeysataan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran intaan xalaqada ku xigtayna ku kulmayno nastawdicukum allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال ما أنت هدي لهاي هذا وحديثك أفراد كتابك 40 كينو سو سعودي صدح حديث أيان كسو قدمني حديثك أفراد أيان ما أنت قلينا وكشا كان يا بني آدم كسيد الله أبورو حديثك أفراد ولا ليال waa xadiis aad iyo aad maaragtay u qiimo badan waa xadiis tusinaya rasuulka caleyhi afdal salaatu atama tasliim maanta caalamka hormaray ee qalabka la sameeyey